waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waana qaybtii koowaad taxana ku saabsan soomaalida iyo dhaqanka xididka. dhegaystayaal, sida laga warqabo xidhiidhka dadku laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa. xigaalnimo waa ku abuurmaa, xididtinimona wuu ku abuurmaa. xigaalana waa la yidhaahdaaye waa dadka xidhiidhka ka dhaxeeya dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xidhan. waxaa xigaal isu ah inta abtirsiinada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad amaba kan afraad isaga soo dhaca. waxaa la mida magacyada kale ah qaraabo, xigto, sokeeye iyo cashiiro. xididka oo barnaamijkan iyo kuwa xigaa ay ku saabsanaan doonaan isagu sida xigaalka kuma abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib. waa xidhiir ka dhex dhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada. xididtinimadu waxay abuurtaa xidhiir aan horay u jiri jirin oo lagu garto magacyo tilmaamaya maantaas kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeedaa waxa ay isu noqonayaan. mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin. mar kale waa sodog oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu ninka guursaday u yahay. mar kale waa sodo oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday. marna waa dumaashi oo waa hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday waxa ay isu yihiin. intaasoo kale ayay gabadha la guursadayna ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo. hooyadiis waa u sodo, aabbihii waa u sodog, walaalkii waa u dumaashi, walaashiina sidoo kale. dhanka kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa si aan magac gaar ah afka ku lahayn. waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo, adeero iyo ilma adeero, abtiyaal iyo ilma abti, eedooyin, habaryaro iyo carruurta ay dhaleen, iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku abtirsato jilbahoosaadka ay ka sii tahay. inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga socnaadaan. waxaan u jeedaa sodoga, sodohda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga. xididtinimadu waxay lahaan jirtay hiddo gaar ah oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. waxay lahayd xeerar la ilaaliyo. kala xishoodka, kala gabbashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa. ciddii dardartana looguma bogi jirine waa lagu ceeban jiray. badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xiraayeen kolba sida ay xididtinimadu ku bilaabato. waxaa jiray arrimo ka horrayn jiray xidhiir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho. waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa. ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin. gabadha oo aan lala bixina inta loo soo gogol fadhiistay reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ahoo aabbaheedii adeeradeed ay ku raalli noqdeen. waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaganuglaada. intaasiba waxay ahaayeen xididtinimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. hol iyo ka hoosow dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lexejecladu ay ka mid tahay. siduu dhaqanku ahaana khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin. dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan. arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaanna waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaajo haddaan sidii daba riyaad loo faydin
ma faydanto. taasise waa xigaalka iyo xigtadee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanayd. marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin, hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo. wuxuun isqoonsi ahay markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclaan jirinoo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen. waatay ku mahmaahi jireen gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa. waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysi cod dheer leh, waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxa la kala tabanayo in lasoo wada bandhigo. markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gocashada badan. inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanayaa inuu run ku hadlaayo, haddana waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysiga in lagu talax tago. qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo. raad arooriyo dib looma raaco mahmaahdii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan, cid labada qoys ka baxsanina aanay tala ku yeelan. waxay sidoo kale madaxa u ruuxi jireen dulucda mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin wax uma sheegaan. sidaynu haddaba soo aragnay, xididtinimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa, kana duwan midka xigtada iyo xigaalku ay ku wada dhaqmaan. si aynu taas u sii garannana waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay. wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo, loo kala eed sheegto, loo wada xaajoodo, loona wada kaftamo. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo. waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo ka mid ah dhaqanka xididka iyo Soomaalida.